maadaama oo dee aan iska ahay dictor aan ahayba waayadan dambe waxaa iska jira xumadaasoo imaka malaa guri aanay gelinba aanay jirin guri kastaba oo lagu soo tooso muxuu ahaay qofay kaga dhacday ama labay kaga dhacday ha yaraado ama ha weynaado hore inooguma jirin xumadaasi oo dhulkeena hore looguma arki jirin laakiin dhulalka yacni lagu tiriyo inay ku dhici karayso xagga caafimaadka baynu ka mid nahay marka muhiimadda waxa weeyaan xumadaa waxa gudbiya qayb ka mid ah kaneecooyinka qaybo badan leh qayb ka mid ah kaneecooyinka ayaa qofka qaniinaysa qaybtaasi markay qaniinto waxay u gudbinaysaa muxuu ahaay virus ka mid ah virusyada kaasaa ku sababaya xumadda deeto qofku waxyaabaha isku arkaya waxa ka mid ah xumad madax xanuun indhaha dushooda oo xanuuna jidhka oo dhan oo xanuuna muxuu ahaay yelaalugo matag daal marmarka qaar waxa ka soo baxaya finan yaryar baa ka soo baxaya dhabarka xanuunaya cuntadu nacaya cunaha xanuunaya dhadhanka cuntada marmarka qaar ka tegi karaya marka calaamadahaas oo kale qofka hadduu isku arko waxa muhiim ah inuu mar walba ku dadaalo wax xumadda ka jebinaya inuu qaato kiniin kale ayaanu qaadan muhiimadda koowaad waxa weeyaan wax xumadda ka jebinaya inuu qaato marka labaad waxa weeyaan waa inuu ku dadaalo biyo badan sharaab badan khudrawaad badan inuu cabo kuwaasoo ka saacidaya jidhkiisa inuu soo ceshado tamartiisa xanuunkana sidiisaba maaha xanuun yacni dawo khaas ah calaamadun baa qofka inta badan laga daweeyaa marka waxaa lagu dadaalayaa qofka in xumadda laga jebiyo inta lagu tacaali karayo lagu tacaalo sharaab iyo biyo badanna la siiyo wax kiniin ah oo aan xumad jebinta ahayna uma fiicnaba marmarka qaar mushkilad baa u keena kiniinada qaar in la qaato marka waxaa qurux badan haddii xaafadda ciidada calaamada ku aragtaan waxaan xumad jebin ahayn yaan la siin waayo kiniinada qaar mushkilad badan bay ku keeni karayaan marka xumad jebintaasna loogu dadaalo kale ee lagaga badbaadi karayaan waxa weeyaan guriga oo kale haddii la iska buufiyo kaneecada meelaha biyuhu fadhiisanayaan oo kale la iska ilaaliyo haddii kaneecada muxuu ahaay mara kaneeca lagu seexdo haddii biifaaf la waayo foox guriga la iskaga shido muhiimadda waxa weeyaan in la iskaga ilaaliyo kaneecadaasi yaani cid kale qaniin masalan oo kale hadduu qof guriga xanuunsanaya jiifo oo cudurkeeda ku dhacday masha allah marka haddii masalan qof guriga cudurkii uu ku dhacay oo kale uu jiifo oo waxaynu ku dadaalinaa dadka kale guriga inay mara kaneeca xidhaan oo si iskaga ilaalin karayaan kaneecada ay iskaga ilaaliyaan waayo kaneecun baa isagana soo qaniini karaysa qofkan kale guriga joogana intay qaniinto uu cudurkii ka qaadi karayaayo mara kaneecada haddii loo xidhi karayo carruurta loo wada xidho haddii aan loo xidhi karayna guriga ha laga buufiyo oo ha laga ilaaliyo muxuu ahaay kaneecada kale inoo gudubto guud ahaan intaasuma saar iskaga ilaalin karaya inaad xumad jebinta ku dadaashid inaad biyaha iyo khudradda iyo sharaabka ku dadaashid inaad kaneecada iska ilaalin karaysid la iskama ilaalin karayo laakiin iska buufisid guriga oo kale mara kaneeca ka xidhatid muxuu ahaay haddaad mara kaneeca weyn misalno kale hadaa bifaaf la waayo fooxii wax la iskaga shido wixii kaneecada eriyay oo kale xumad jebintana lagu dadaalo waxaan xumad jebinhayn uma fiicna muxuu ahaay cudurkanna waa self limited disease bay u yaqaanaan yani waa cudur keligii tegi karaya sida hargabka oo kale jidhkaagun baad caawinaysaa wax yani awoodda u soo celiyo intaa haddaan intaa kaga baxo muxuu ahaay ka arday ahaan intaan odhanayo anigu horta arday baan ahay weli waxbarashaduna ma dhammaato waxbarashadu yani bilow bay leedahay dhammaad ma leh qof waliba halkuu baska kaga dega un yani aduu halkaad kaga degto un bay ku xidhan tahay marka idinku arday baa tihiin waxbarashadu way dhib badan tahay way hawl badan tahay sabir baa laydinka baahan yahay dadaal baa laydinka baahan yahay toosnaan baa laydinka baahan yahay inaad waalidkiin u dabacsanaataan baa laydinka baahan yahay inaad meel kasta oo aad joogtaan macalinkiina matashaan baa laydinka baahan yahay marka layna arkaba suuraddii macalinkiina idinka muuqanaysa waa inuu dhaqankii macalinkiinu idinka muuqdaa waa inuu muxuu ahaayey toosnaantii iyo qalinkii iyo wax dhigistii macalinkiinu inii dhigay idinka muuqataan dadaal baa laydinka baahan yahay beritoole halkan aanu fadhinay idinkaa fadhiisanaya na wada bedelaya sheekhii dictoorkii madaxweynihii wax kuuri ummaddan dhinacyadeeda badan oo dhani idinkayna ku kaydsan tahay mustaqbalkii ummaddu idinkaa tihiin yani afkaartii iyo maskaxdii ummaddu idinkayna ku jirtaa dadaal baa laydinka baahan yahay mar walbana waxaas kow ka dhigtaan ood wax walba ka horreysiisaan xidhiirhka ilaahay xoojiya cibaadadiina wanaajiya dikrigiina wanaajiya wax walbana waynay hagaagayaan waxaynay ka xumaanayaana ma jiraan waalidkiin adeecitaankoodana ku dadaala guusha noloshu waa waalidkoo la adeeco haddaad doonaysid inaad wanaagsanaatid waalidkaa u roonow
intaad waalidka u runtahay oo in bay nolosha ku fududaanaysaa intaana ku dadaala